halkan fadhida technology-gii alaabta inoo haysa iyagana waxaan jecelahay inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo iyo dadkii yaboohda soo bixiyey in waxan ay noo suurta galaan markii afraad anu maalinta tii ugu horreysay markaan samaynay Dr. Cali Khaliif waxaan ku yidhi calutaan haddaynu samayno beste halkaasay ku dhammaan Soomaali mid labaad kusoo celin kari mayso de maanta afar baynu maraynaa kuwa badanna way soo socdaan anu waliba waxaan jecelahay topiga soo socda amba kuwa ku xigaa inuu noqdo dumarka Soomaalidu halka ay ka geliyaan wadanka soo dhiskiisa dumarka aqoonyahanka ku casuuno oo ay arrimaha ka hadlaan waan jecelahay arrimaha fanka iyo maxaan ku rahay suugaantu halka ay ka geli karto soo dhiska wadanka waa topic ballaaran oo u baahan in laga hadlo marka waxyaabo badan baa soo socda laakiin idinkuna yaboohda ogaado shilinka bixiya kala way baabuurku batrool duwaada ma dhaqaaqay marka waad mahadsantihiin inta arrintan garabka qabatina aad bay u mahadsan yihiin idinka halkan yimid hawlihiin ka yimidna aad iyo aad mahadsantihiin waa kan maqsankiisu soo buuxsamay aad baad mahadsantihiin walaashay Dr. Rodan iyo walaashay Cabdinuurna magaaladan anigu ma degeniyo Saint Paul anu caasimadaan u degana halkan waa wax lagu kala iibsado Minneapolis laakiin labada magaalo oo ugu qurux badan oo ugu wanaagsan wixii milyan ka badan wadamada wadanka Mareykanka hadda ay to urban areas ee ka badan 1 million this is one of the best places to live waa meelaha ugu wanaagsan oo ugu noolaado ayay leeyihiin caafimaadku aad buu wanaagsan yahay nabadgelyadu aad bay u wanaagsan tahay dhaqaaluhu had iyo jeer dhaqaalaha inta kale wadanka uu ka wanaagsan yahay xoogaaga January iyo February cadaabteeda waxaan ahayn waa aad bad wanaagsan tahay marka soo dhawaada nabadgelyada aniga hadalkaygu warmaa ku jira laakiin de warmahan ula jeeda maaha inaan amba dad ku xumeeyo amba aan aflagaadeeyo amba aan sheekada inaga xumeeyo maaha warmahaasi inay yihiin kuwa aan dhiig daadin laakiin xanuun yar abuura ayaan jecelahay inaan waayo haddaynaan halkaa isla marin oo inaan run raadsan waxaan anugu qabaa dad sidan u burburay oo u baaba'ay haddaanay run raadsan islaamnimaduna runtii way ugu soo horeysa haddaynaan run raadsan iyo cadaalad labada haddaynaan helin waynaan ku adkaan waxaan noqonaynaa dad aan weligood iyo lahood helin miftaaxii ay ku furan lahaayeen dhibaatooyinkaas malihi waxaan ku hadlaya ayaa saxsan anuu malihi taas and probably I am wrong laakiin waxaan jecelahay inaan taabto dhulal walaalahay aanay taaban oo laga yaabo inay xiise kiciyaan but that's good because discussionkeenu waa inay halka dhulkaa gashaa haddii aynu doonayna inaynu waddanka iyo ummaddii wax u soo korin arrinta baarlamaanka maxaad uga baxday dee faalladeeda geli maayo haddaad su-aasha soo celinaysaan hadhowto khudbad gooniya u baahanta laakiin haddaad su-aal soo gelinaysaan hadhow waan isku dayay inta yar aynu odhanayaa se waa tan aniga waxay la noqotay waanan ka idhi idaacadaha de waan ka sheegay inaad dhegaysateen baa laga yahay waxaan anigu arkay oo ii muuqatay baarlamaankii dad wanaagsan waan ku bartay oo qaarkood baarlamaankii hore ka soo hareen qaarkood imika la doortay waan ku arkay laakiin markaan arkay 275 anigu waan ku jiraa siday u shaqeynayso markaan arkay waxaan isiri halkan waxaad qaban kartaa ma jirto marka inaad meel kale ka raadisay sida aad ummadda Soomaalida hadalkeega iyo dacwadeeda iyo doodeeda u galayso meel kale laga yaabo inay ka dhow yihiin baarlamaankaas ay aniga ila noqotay waxaan ku yiri markaan Xamar joogay magaalada aan joogay oo si wanaagsan la igu soo dhaweeyay shaqada halka aad magaalada wadankii ku noqonayso amba Xamar ha noqoto amba Hargeysa ha noqoto amba Boosaaso ha noqoto amba Beledweyne ha noqoto amba Kismaayo ha noqoto it doesn't really matter halkaad ku noqonayso wadanka aad ku noqonayso waa inay laba midun jirta inaad fasax u tagayso oo intaad iska tamashlayso sariir wanaagsan iyo hawo wanaagsan iyo biyo wanaagsan iyo cunto wanaagsan iyo kamankii xudeediyo wanaagsan iyo alaab wanaagsan ku socoto oo fasax caynkaas aad ku jirto good life waa ku noqosho iyo inaad u tagayso shaqo kaa dhididsa oo habeenkii markaad soo hoyato aad ku xisaabsanto this was worth it maanta wallahi it was worth it waana labada mid noqoto haddaad labadaba isku heshana dee hadalkeyga badaa laakin that's almost impossible waqtiga la joogo aniga waxay la noqotay aniga waxay la noqotay naftaydii markaan xisaabiyey waxay la noqotay inaanan baarlamaankaa ku jiri karin waayo ku noolaashaha Muqdisho amba Boosaaso amba Hargeysa whatever the places meesha Soomaali joogto waqtigu dadku ku adag aad buu adag
ودي وضن بربري يود ما قرح بدل لقولنا ولا هذا اسمه لا هده it's impossible marka meel inta subaxii ma toos inta toosto badda inta tagoon iyo xogaa soo ordon soo noqdon quraacdo oo ma samayn karis marka good life ma aha anu waxaan qabaa inaanay possible you can live but not a good life anu shaqo weyn oo isiraaho waxaan kaloo dhan this is it inaad habeenkii inta markaad soo dhiibto maalinta habeenkii aad ku xisaabtanto anigu taasina ma arag from my point of view baarlamaanka markaan kolkaa waxaan isiri 4 sanadood oo sidan ihi ya waa cajaa'ib ya wax walba waad seegi kolkaa meel kale ka raadi dantii soomaalida meel kale ka raadi ayaa aniga ila noqotay ya marka laakiin dee dooda way noo furnaan doontaa bada laakiin walaalkay cabdinuur baan doonaya waxoogaa jawaab yar inaan yara siiyo eedda waan ogolahay laakiin aniguna sababtaan uga imid in layla fahmo waxaan malaynayaa waddankuna dee 3 sanadood iyo 4 sanadood ka daawan yahay oo iyo waqtigayna haystaan waa waqti dheer wey taasi halkaan ka gaaro anu waxaan doonayaa hadalkayga inaan ku bilaabo distoorka waayo arrintan federalismka waxaa hoosta kaga jira distoorka waddanka wadhiga ayaa kaga jira inuu distoorka waddanku waa la dadaalay anuu dadaalkaasi in la hakada maaha waa la dadaalay laakiin de professoradu waxaan isla naqaanaa idinkuna aad nala taqaanaan dee ardaydu way dadaali laakiin de hadda anu waxaan saxayaa final examskii class aan dhigayo de waanad grade siisat waan dadaalay ee kuma siinayso waan dadaalay haddana d baad heli adoo dadaalay marka de evaluation in lagu sameeyo wixii waa la mar laakiin aan marnaba la yaraysan amba aan raquursan dadka shaqada qabtay ee dadaalay didka badan ee dadka yani inaynu distoorka la fahantiisu inuu dhibaato yahay wax ka garanaysa oo si wanaagsan loo maamulo wax ka garanaysa laba amuuro mid waa kan distoorkeeda wadiga intuu leeyahay distoorkii Mareykankuna waa kan dabale waa isku 310 milyan oo qof ayaa ka haysta oo waliba isagii distoorkii oo dhan maaha nuski waxa weeye declaration of independence ma had distoorka distoorku waxa weeye 16 xashadooda yar yar way distoorka Mareykanka 310 milyan oo qof dadna way ku noolaayeen now in ka badan 200 wadama inana inoo bilaabana waad yarkay intuu leeyahay islu balaaday hawlaha taasi waa mid talabaad anigu markii distoorka la ansixinay waan joogay Muqdisho dadkii ansixinay qaarkood aan aw yeero kale intaan u diibay dawladda iyo dadkii xafiisyadii u qaabsan kulli magacyada caynkaas hay yimaadaan wada mutacallimiin hay yimaadaan ka qayb qaadan way yimaadaan 800 ka badan oo qof baa la isku yeeray inay xamar yimaadaan anu waan joogay degdeg ya ansixiya degdeg ee wax deliberative oo waqti lagu qaato iyagana de waa international community waxayna dawlad shaabugiiba daba joogo dhamaaya wax soo garmay laakiin waqti lama siin deliberation serious la xabad inta loo kala qaado laga doodo ya way aad bay waqti gaaban ayaama gaaban ayayno ansixiya marka taasina dhibaato ayaa ka jirta ugu dambeysana of course waxa weeye waxaan hadhowto in ummadda Soomaalida markuu distoorkan sidoo loo noqday in istiftaal geliyada way soo socotaa baan fariya referendum in la qaado markaas uu noqon karaa wax dadku ay qaataan ay ku dhaqaan taasi waa talabaad waxaan doonayaa in laba dhowr kalmood ka ibaado arrintan federalism intaynaan u gelin waxa ka horeeya waxa la yiraahdo state haddaanad haysan federalism waa form of governance waa sida loo maamulo dawladda laakiin dawladda Mareykanku waa state way it could be central, it could be decentral, it could be federal, it could be confederal, laakiin waxa presuppose waxa ka horeeya inay jirto waxa la yiraahdo state image ta anu waxaan qabaa inaynan si wanaagsan u fahmin oo dadka ku ordaya amba federalism ku ordaya amba decentralization ku ordaya amba centralization ku ordaya amba confederal inaan munaaqashaba laga gelin waxa state ku yahay dadka inteeda badan aanay fahamsanayn ba waxa state anigu waxay la tahay أنا كل يراني حاجة at least academic I'm pretty sure about this و conclusive evidence ودن كأو كليتو
backward uu ka dambeeyo uu ka liito ayuu u baahan yahay dawlad quwad leh inuu haysto. Listen, this is the academic evidence. Wherever you go, wadanba wadanka uu ka liito ee xagga xadaaradda iyo dhaqaalaha iyo nolosha uu ka dambeeyo ayuu u baahan yahay inuu helo dawlad quwad leh oo waxa soo dhisto. Taa research waa la isku raacsan yahay. Buugag waaweyn oo jaamacadaha lagu dhigto ayaa buuxa oo arrimaha ka hadlaya. One of the best books oo la yaqaano celebrated around the world. meel aan lagu dhigina buugaa ma jiro haddii aad arrimaha shaqo ku leedahay state building iyo howlaha caynkaas. Alexander Krashenko ayaa magaciisa leeyahay. nin ruush u ahaan jiray oo ruush ka yimid oo Maraykan yimid. Harvard University buu u fadhiistay. halkaasuu macallin weyn ka noqday ilaa dhowr soddon sannadood in ku dhow. buugii ugu weynaa ee mid walba uu ka dab qaato ayuu qoray. waxaana argumentkiisu uu yahay wadanba wadanka uu ka dambeeyo ayuu u baahan yahay inuu yeesho dawlad quwad leh oo soo dhista ciidda soo dhista environment dhaqaalaha soo dhista soo dhista maxaan ku idhahay technology and science soo dhista u baahan siyaasadda inay soo dhisto ay soo adkayso adduunyada kale inay la tartanto waxaasoo dhan u baahan. markaa Soomaali dawlad quwad leh waynu u baahannahay. haddee inagoo dadka ugu liidano haddaanu nidhaahno dawadii dadka kale ay heleen ma doonayno dadkana aan ugu liidano dee ma shaqaynaysa caqliga caynkaasi ma shaqeeyo. marka horta in la isla fahmo stateku inuu important yahay weliba strong capable state oo legitimate waa important. maamulkiisu siduu noqonaya bay markaa noqonaysa what type of state maamulkiisu aniga waxay ila tahay soo celin qaran dawladeed oo Soomaaliyeed way sheekad waxaan qabaa noocyo badan ayay qaadan kartaa. walaalahay qaarkood waa kuwa carabka ku dhiftay wana runta. waxa ugu horeeya waxa la yidhaha confederation maha federation confederationka sida walaasha ay u sheegtay hodan dee waxa weeye dawlad state wuu jiraa laakiin quwadda waxaa haysta regionska gobolada. halkan waxaa la odhan karaa Maraykanku waa states Alabama, Mississippi, Kenya, Minnesota, whatever the state is ayaa haysta. stateku markaa dhexe waa wax yaroo daciifa oo meel yar joogo oo iyaga magan u ah. in muddaa Maraykanku tahayna ku dhaqmaamay dooneen way usoo cawday waa ku iska bedel. wax aan dadkeena kula talinaya aniguna ilama aha in confederation yahay wax la waa central state na ama even decentralized state waxa weeye xooga waxa la saarayaa dawladda dhexe inay quwad yeelato. quwaddu maaha qof intuu kursi ku fadhiisto aniga wax walba leh qofkii i diida amba ila socon waayana boorta aan ka goyn amba waa kabaash amba waa xidhi maaha centralization ku caynka. laakiin dawlad dhexe inay noqoto awooddu markaa inay fadhido halka dhexe gobolladuna ay magan u yihiin dawladda dhexe. central state in a simple definition sidaas ayuu yahay. anigu xisbigan ku jira hil qaran la yidhaaho way qoran tahay referencekayga annaga sidayna la noqotay decentralized unitary state in la sameeyo way qoran tahay. cawas waxaan doonaya inaan taas sii riixo wallah intaa waqtiga yahay. anu waxaan qabaa arrinta federalism la yidhaaho waddanka Soomaalida khatar weyn inay ku tahay period inay khatar ku tahay ayaan ugu qabaa. khatar waxay ugu tahayna waa kuwan waxa weeye sida loo kala furfurayo loo kala qaadqaaday dhibaatadeedu waabay bilaabantayba. waad garanaysa imika waxay maraysaa anuu tiradii ugu dambeysay ma hayo. waxay ugu dambeysay iyadoo 30 ku dhow ayaa ugu dambeysay furfurka gobolada 30 iyadoo ku dhow. furfurka ayaa joojinaya ayay noqonaysa. waayo haddaad albaabkaa furto sidaa loo furfuro oo wax kale dood kale ma jirto anana ree hebel baan nahay tanaan wadanaa ree hebelkiina aysa sii sarrifayaan waxaa noqonaysaa markaa endless process of decomposition inay sii kala daataan. inta xitaa is ogolna siday u samaysanayaan maxaan ku dhahay xuduud loo kala samaysanayo ilaan dadkan isdhex galay ee sidan ee kala guursaday ee isdaldalay ee weligood isku dhex noola sida xuduud loogu samaynaya la fahantoodana weli lamaba gelinba hawshaas
oo dee xuduud sida loo kala samaysanayo taasuna waa combustible dab baa halkaana ka bixi kara dabka qaarkiina durba wuu shidmaya dhibaatada labaad ee saddexaad uu federalismku leeyahay waxa weeye oo Soomaaliya ku dabaqan khaasatan waxa weeye dhaqaale sida loo maamulayo gobolada sida loo maamulayo mid walba baarlamaan intuu sameeyo aqal sare iyo aqal hoose iyo madaxweyne iyo dawlad wasaaradii hawla intuu sameeysanayo sida loo maamulayo dhaqaalaha halka looga keenayo daarugu ma garanayo marka waliba dadkeeni gaajada haysa ya dadka cadceedu hayse gaajadu hayse biyo la'aantu haysto shilinka ay bixinayaan in lagu masruufo ya inta soo baarlamaan oo fadhiisto halka babayga habeenka ku cun subaxina shaaha ku cabo siyaasadda ka sheekaysta أنا واحد قبائل يتم بوين تبقى دقالة وما هينا يا مصروفة يا نبرس حقين لو كنا يا مصروفة ده كان مساكين تمية مثل معاورة إلى دي بدل اللي كنا ده اللي بعض مدنا أنا واحد قبائل أنا يوقع من هالكائن لما ريو دولة دي روح خفيف فوق ودل يعني أنا أقول هي جروب أنا لكن قوة أو حلال أو كتير حديث الفدراليزم كله سيوده أنا واحد قبائل فدراليزم كدباتو أي كيما نسلو كرتي اللي فهمتي ذا فدراليزم صوماليا الله أبورا وجددوا معها قبل كا أول الدنيا يعين لدسوا أول حلال يوم واحد لقدي وجدد بدن كيجو سياسيين تان صار كين كل حجري وحوي مالي الله فريستور لفايسة أو لقدو لمقدش يا مقدش الله لا بايع تمام شغلوا معها deep commitment to the welfare of the people in that particular community. هذا السؤال. طيب حديث الفدراليزم لراعي ولا وضعي نوعي ونقولها حديث هذا لراعي دوتي أنا respect her attitude all اللي هي look أجزم هالك لا قبل عم يعدود وحوي وجرة فدراليزم مركها what kind سؤال شيء لما أي نقولها هالك ورما هيك صباح يعني هالك كو hadday sidaa la sameynaya anu waxaan qabaa dee waa iga kafta qaarkood doodaya markaa ha u qaadanina too serious haddii sidaa ay tahayna soomaalida isnaqaana sarifkeenuna aanu joogsanayn war dee qof walba nin iyo gabarh walba dee state ha samaysto oo aniguna axmed samater state la yidhaah ayaa wata I mean that's the ultimate logic of this anugii example baan idin siin xamar baan jooga Puntland waxay ka mid tahay anigu dhulkan aad iyo aad loo ixtiraamo oo shaqo dad Soomaaliyeed oo isu soo abaabulay oo wax hagaajistay oo hawl abuuray and all of us should be proud of the accomplishments but here is the big fly in that ointment for example xamar baan jooga hawlkan deganaa dad baa yimid waa markii baarlamaanka ya la soo galayay dabadetana musharaxaad iyo wixii la galayay dadkaas odayaal waliba nin aftahana oo magaciisa waan haystaa not here I have it aad iyo aad maxaan ku rahayaa you can't help but listen to him waana dhegaysataa markuu afka kala furo wuxuu yiri Puntland baan ka nimid aniga iyo nimankan ay ku adfadeen baan wada fadhiisan insha Allah cabna hudaalka taas ah boqol wuxuu ii sheegay dhul aanan maqal oo garanay Puntland ma garanaya moogta wuxuu ii sheegay Puntland meela buurale baa jira oo buurale oo degmaan deganahay oo la yiraahdo oo Puntland hanagu darina buu yiri ila sabataro ogaada hanagu darina Puntland waanu ka nimid degmada laakiin anagu gooni baan nahay magaciina uu sheegay waa dhul buurale oo biyale sawaradii baa la tusay dhulka soo hada garmayso waan yaabay anu Puntland waxaan u haystay as a one total place laakiin waxaan arkay dildilaac hadii la sii qodo dildilaac in ku jiro same thing with other sarifka aan la joojin karin de qof walba state-kiisa ha samaysto inagoo 10 malyan oo qof walba state wato aynu isku nimaano dee shir maxaan ku rahaa ayaan ka wada hadalno sida la isku dardareeyo of course that's nonsense inta laga soo wareeg the sub clan ya marka la soo dhaadhaco 4.5 kii laga soo dhaadhaco sub clan bada in dawladda iyaduna meel yar samaysato iyadoo state-ka iyagii waa ayaa ku xiga taasina waa logic walku ina gaarsiinayo iyadoo way sarifkeedu wad garanayso halku marka dambana clankii weyna ya 4.5 kii ila sameeyo ama 5 ila sameeyo ayay noqonaysaa anugtaasina ma soconaysa ayay la here is my final argument
and this is serious. igamana aha Ahmed Samatar Soomaali weynimadi ka baxay oo markaas Somaliland noqday oo waxa ay suuqa la galiyay dulbad waxa ma people have a right to do that, like it's not true. But here's my argument. I don't want to lay a federalism of Somalia. Federalism هو إنه نقانون مت أتك صور دعوة عنه. وإنه نقول مت تاريخ ذا كفر ده وضك. ده هذه تاريخ اللي أقولي هوي. هذه تاريخ اللي أقولي إنه invention كل بالله Somalia fine. That's a different story. لكن هذه تاريخ ذا كفر ده أنا واحد قبضه only federalism. يا هل كان لقبل هذا كلام federalism وحوي. Somaliland هي صوماليا وصو كرسي صوب فرست. إيجا يونيون كأبورين. يونيون كإيجا أبورين لبدو دا أبورين. هذه تاريخ الأصيل لما صحيح أو أنا جيرين تسافر تستوى وقت الشركة كلام كأي نقلب. وهل كي بين نقلب أمر كأن أزيدين شيء بين نقلب. هذا تاريخ كفر بدو. وينه هينا وقت جي ذاك النوراب وقت جات جوجي واحد سميه بقى النور ولي أو عوض الدمار. كده تاريخ الوقت. Somaliland مقدسة هي هالكيس هنا بفلسطين. أو أي كوذا حدلان يونيون كي أي كل رياضين أي ديسان 1960 وحبا كل عين massive hemorrhage أي كل عين وكرتات. Whoever is responsible is a separate story. إنت المسؤول لو قد جي ودود جوني. لكن reality هو حوي وحي وكرتات. إنا يجي أنت الصور فلسطين إلى هان ما أبوري كرنا. Union عصب fit for the 21st century. أنا نقول federalism تاس هل كاسو بيك دقائق شو هذا ما يعني غيرت وايو تاريخ لا تاريخ إيسا دودا أنا وانقبوا أي تاريخ إيسا وأنا كحر على إيسا تاي واحد كمان أنا فرمانكم وأنا كحر على إيسا نعم سؤال شو مركب واحد نقول إيسا لبلا اسم بلابي كلام دود أما federalism بقى مدة سوماليا لسكو كينيو even federalism لكن نقطة مدة كسوماليا وش قيس أبنا ده هنا هذا الكوان ديري هذا الكيجا عاوح مقصود بقبيني الدي federalism أنا لقيت تجي because it is already on the platform أنا لقيت تجي أنا واحد قبائل كبيرين negotiate يا قبا لكن هدي أنا لقيت تجي إنه اللي هالك صعد والك كبلا federalism كاسو حكب بلاد مكرا أو حلال تاريخ دونا أيديسا Somaliland من Somalia مقدسة هي هالكيسة هنا ولا فلسطين لكن يجونا جذوه جميل والبوين وسصاح على أيام مركورنت وهي مدل بجذوه جبوجة وين أياكويا وأنا هتسنتين سلام عليكم ورحمة